Asalaamu calaykum ardayda kusoo dhawaada cashar Swahili ah waxaan sii wadeynaa Ingeli waxaa waaye kooxdii afraad aan rabnaa inaan ka hadalno oo Ingeliga Ingeli uzi aan rabnaa maanta inaan barno kooxdan ama groupkan oo magacyada Swahiliga ah ayaa rabnaa qaar ka mid ah inaan fiirino tusaale inta kalena adiga ayaa laga rabaa. Okay, tusaale ahaan Ingeligan magaca Swahiliga ah markuu uu single yahay ama kaliya uu ku bilaabanayaa ama kiambishiga ficilka ka horeysa ayaa markii ay jamac tahayna zi bay noqonaysaa. Qasama magacyadana inay ku bilaawdaan xarfo kale ku bilaaban karaan laakiin qaar ka midana way ku bilaabanayaan qasama inay zi ku dhamaadaan laakiin muhiimku waa markii jumlada lagu isticmaalayo ficilka xarfaha ka horeeyo kiambishigso lagu dhaho bilowga ayaa waxay ku bilaawdaan markay kaliyihiin markay jamac yihiin zi way noqonayaan isu bedelayaan sidaas ayaana magaca loogu bixiyay. Haddaba aragna tusaalaha ereyada aan qoray number 1 waxaan qoray uzi waa Soomaaliya markii la micneeyo waxaa weeye dunta dharka lagu tashto cirbada la geliyo waa markay kali tahay markay badan yihiin nyuzi ay noqonayaan nyuzi ay noqonaysaa. Tan waxaa waaye ukuta markii ay kali tahay oo umoja tahay ukuta waaye waxaa la yiraahdaa derbiga hal xabo markuu yahay ukuta markay badan yihiin ukuta ay noqonayaan. Wimbo waxaa weeye waa hees songa English lagu dhaho hees markay badan yihiin nyimbo waaye. Heesta markay dhamaato tukala waa hal qof laga yaabaa 15 hees inuu qaado soo markay hal xabo ay tahay wimbo markay badan tahay nyimbo. Tan waxaa waaye ubao waxaa waaye sabuurada wax lagu qoro whiteboardka ama blackboardka markay badan yihiin soo galaysa ama bao ay noqonayaan bao. Tan kalena waxaa waaye ulimi waa carabka markay badan yihiin indimi ay noqonayaan. Mida kale waxaa waaye ukucha waa cidida oo hal xabo markay badan yihiin kucha ay noqonayaan cidiyaha faraha oo fara badan waaye. Halka iyana waxaa waaye wakati waxaa waaye waa magac waqtiga ka hadlayo waqtiyo marka leedahana nyakati aad leedahay soo intaan marka waa magacyada ka tirsan kooxdan lagu magacaabo uzi ayaa lagu magacaabaa kali markay tahayna way kiambishigooda ku bilaabanaya ama xarafka ficil ka horeeya ku bilaabmay markay badina zi waa. Haddaba jumlada aragna si loogu isticmaalo si aad wax badan u fahamtid soo waatana halkan waxaan ku qoray ubao aan ku sheegnay sabuurad علينا ubao wako umepakwa rangi ubao sabuuradi wako adiga lahayd sabuurada adiga lahayd waxaa ka hadlaynaa tan kiambishiga alle waa xarafka ficil sameeyaashan ficilkina waa kana iyo magaca waqtigan ka horeeyo kiambisha laha bilowga xarafka uu ku bilaabmayo ficilkii iyo waqtigii isla socda ayaa waxaa Ingeliga loogu magac daray soo marka xaleena ubao wako sabuuradaada umepakwa waxaa la mariyay rangi waa la paint gareey rinji la mariyay rinji madow ama cadaan baa la mariyay sabuuradaadii ubao wako umepakwa rangi sabuuradaadii waxaa la mariyay rangi waa rinji waa. Alright so marka ayadoo jamac waxay noqonaysaa bao zenu halkan wako adiga taada waa kaliya waa laga hadlayay zenu waa lahaansho jamac oo dad badan adinka oo kale sabuuradihiina bay noqonaysaa dan marka waxay u taagneed hal xabo halkan zi bay isku bedelaysaa waana magaca kooxda sababtoo ku yimid weeye umepakwa ahayd halkan zimepakwa soo marka waxaa isbedelay xarafkan oo bilowga wuxuu isku bedelay zi
inta kale waqtigii iyo ficilkii isma bedelayo. Waqtiga waa kana ma isma bedelayo, pak waan isma bedelayso. Sabuuradihiinii waxaa la mariyay rangi, rinjigan isma bedelayo. So waxay noqonaysaa mbao zenu zimepakwa rangi. Sabuuradihiina waxaa la mariyay, dad badan la hadlaysaa rinji. Alright, number 2 waxaa ulimi hauna mfupa. Ulimi hauna mfupa. Ulimi hauna mfupa. Ulimi waa soo sheegnay waa carabka, hauna malahan, mfupa waxaa laga wadaa waa lafo. So marka halkan waxaa loo isticmaalaa mithali ama sida proverb ama mahmaa camal loo isticmaalaa. Waxaa yira carabka laf malahan. Ulimi hauna mfupa, carabka laf malahan. waa jumlad negative ah. Hauna markii la leeyahay haadaas waxay ka dhigaysaa negative ay ka dhigaysaa. Uudina aan ka hadlayna uziina waatana aan baranayna halkaas ay gashay ayadoo u soo noqonayso ulimida. So ulimi hauna mfupa carabka malahan, laf malahan. Markay badi waxay noqonaysaa indimi carabiyada hazina. So meeshan markay ku jirto jumladda maadaama ay negative tahay, ziidin halkaas ay soo galaysaa iyadoo u noqonayso jamca carabka. Marka hazina ay noqonaysaa zina mifupa. Mfupa tan way isbedelmaysaa, hal laf waaye, tana lafa malaha. So marka waxay noqotay indimi hazina mifupa. Carabiyada malahan wax laf ah. Okay, number 3 waxay dhahayna ukucha ukucha waa cidi hal xaba. marka waa ishaaraysaa tan waa ukucha ani cidideeda camal waaye. Ukucha cididan unapendeza waata halkaasi ku jirta, waa qurux badan tahay oo waa very beautiful ama cute ama way soo jiidasho leedahay. waa dadka midha cidiyaha saarto oo xirto ayaa loola jeedaa. waxaan leenahay ukucha unapendeza, cididan way qurux badan tahay ama soo jiidasho leedahay. haddee jamactu waxay noqonaysaa kucha hizi. meeshan laba ay noqotay, halkaana zi waa hizi. cidiyahan waa hizi, waa wax badan. cidiyahan zi mid halkan way ahayd, intan zi waa, intana waa ku jirto, saas oo la soconaysaa. Zinapendeza way qurux badan yihiin ama way soo jiidasho leeyihiin. Number 4 waxaa ukuta darbigan wenyewe waxaa itself ama nyewedaas iyana waa baran doonaa. herself wixii markaa kusii adkeynaysid, yourself, himself, herself markaad leedahay waa baran doonaa ayaa nyewe like Swahili. alada ukuta wenyewe way markaa isticmaalaysaa. markaa nyewe isticmaalaysid ukuta wenyewe ni mrefu. darbigan naftarkiisa waa dheer yahay. and this wall itself is long or tall baa leedahay. halka marka Englishka saas waaye. jamci marka waxay noqonaa kuta darbiyada zenyewe. halkan markii way qaadatay intana zaadayna qaadanaysaa zenyewe ni ndefu. mrefu waxay isku bedelaysaa, ndefu isku bedelaysaa. waa markii jamca ku sifeynaysa. mrefu waa eray sifa ah oo sifeynayo darbigaas uu noqonaya. soo marka sifadii way badanaysaa, ndefu isku bedelaysaa, waxayna sifeynaysaa jamca oo darbiga. so inta waa marka tusaalaha ingeliga zi. wixii intaan ka baxsan ardayda iga soo codsadeen waxaa waa adinka baaran kartiin, raadsan kartiin. ani tusaaleyga waa intaas 20% unba macalinka bixiya, inta kale ardayga laga rabaa. so marka wixii su'aalo kale oo aad fahmi weydiid commentiga ku soo qor.